النبي عليه الصلاة والسلام nin dhallinyaraa baa u yimi kii dhallinyaradee u yimi su-aal aad u qariibuu nabiga weydiiyey waxuu yidhi anigu waxaan rabaa in zinada lay fasaxo waxaad qiyaastaa majlis nebi maxamed fadhiyo oo dee saxaaba fadhido oo nin yaroo dhallinyaro intuu iska soo galo u yidhaahdo aniga waxaan rabaa in lay fasaxo oo zina lay fasaxo suuqa inaan iska gala aniga ha lay fasaxo saxaabadii markaa waa lagu qayliyey mahmah bay ku yidhaha war aamu oo kale waxba ku hadli maysid wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iska daayo udnu ii soo dhowow buu ku yidhi ma maagin ma caayin ma odhan war waxaad ku hadlaysaa inuu qanciyaabuu rabaa wuxu sheego si uu weliba wax ku fahmi karayna ugu sheego soo dhowow buu yidhi wiilkii wuu soo dhowaaday soo dhowow buu weliba ku yidhi wuu soo dhowaaday ilaa uu nebiga hortiisa soo fadhiistay dabeetana nebigu way xunta iyo way wanaagsan baabka laba kalama haddana su'aal buu weydiiyey atuxibuhu liummak buu ku yidhi zinadanaad sheegayso hooyadaa miyaad la jeceshay hooyadan suuqa lagugu yidhaha way zinaysantaa wuxuu yidhi may laa wallaahi jacalana ilaahu may buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay ilaahay fidaagaaga hayga dhige inaanan waxaas hooyaday la rabin nebigu wuxuu ku yidhi wala annaasu yuxibuunahu liummahaatihim dadka kalena hooyooyinkood lama rabaan wuu soo waday nebigu ilaa su'aalaha uu weydiinayey inantaad adigu dhashay miyaad la jeclaan lahayd buu yidhi markaasuu yidhi maya ilaahay hayga kaa dhiga kii lagu furtee walaashay inantaydu inay waxaa ku dhacdo walaashii baa la weydiiyey may buu yidhi habaryar baa la weydiiyey may buu yidhi eeddaa la weydiiyey wixii dumar hareerihiisa isaga ku xeernaa ama kuwa waalida ha u noqdaan ama kuwa u dhaleen noqdaan ama kuwa walaalaya waa la weydiiyey xumaha ma la rabtaa intiiba wuxuu yidhi maya lama rabo mid kastana markuu yidhaha lama rabo nebiguna wuxuu yidhaha dadkuna kooda lama rabaa nina walaashii gabadh kastaa rag bay la walaalatay walaalahood cidina lama rabto eedooyinkood cidina lama rabto dee dadkuna waa intaa u qof walba qof baana dhalay qof baana walaalaya qof baana eedow ah qof baana habaryaru ah dadkuna intaa lama rabaa markii dambu nebigu calayhi salaatu wasalaam gacanta intuu laabta ka saaray buu u duceeyey wuxuu ku yidhi allaahuma akfir danbah watahhir qalbah waxasin farja ilaahayow ilmahan dembigiisa cafi qalbigiisana u daahiriya u nadiifi farjigiisana u dhowr saxaabiga xadiidka warinaya abaa umaamat albaahili wuxuu leeyahay falam yakun bacda dalika alfataa yaltafatu ilaa shay dib cid dambe isagoo hareeraha eegaya lama arag yacni muxuu tilmaamayaa wuu qanciyey nebigu calayhi salaatu wasalaam